iyadoo saacadii u dambeeyay dagaal beeleedyo ay ka soo cusboonaadeen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xildhibaano xubno ka mid ah golihii wasiirada ee xukuumadii kalsoonida lagala noqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo odayaal ka kala socday dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Shabeellaha Hoose. kulankan uu soo qaban qaabiyay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo joojin lahaa dagaaladaasi dib ugu soo cusboonaaday deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana xalka madambeysa looga gaari lahaa. gabagabada kulankan ayaa waxa laga soo saaray war saxaafadeed ka koobnaa dhowr qodob. madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu ku baaqay xabad joojin degdeg ah asagoo ka rajaynaya labada dhinac ee colaadda u dhaxayso inay baaqaan u hoggaansamaan. labo, in la sii wado wada hadallada lagu baadigoobayo nabadda gogosha nabaddana la dhigi doono degmada Afgooye taasoo la iskugu keenayo qaybaha kala duwan ee bulshada sida oday dhaqameedyada culamaa u diinka siyaasiyiinta. wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku hadlayay afka madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhinaceeda diyaar u tahay soo gabagabeynta xiisadaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay dawladdu gacan xoog leh ka geysan doonto arrintaasi. marka aniga ahdaano ku hadlaya magaca xafiiska madaxweynaha ee dawladda dhexe waxaan ballan qaadaynaa dhankeena inaan wax alla wixii hiil iyo hoo ee nooga baahan yahay maamulka Koonfur Galbeed oo hogaaminaya Shariif Xasan Sheekh Aadan ee arrintaas lagu xalinayo haddii ahaan lahayd mid dhaqaale haddii ahaan lahayd mid security iyo amni iyo wax alla wixii kale oo u baahdaan inaan la garab taaganahay ilaa arrintaasi ay xalismayso. ugu dambeyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuuna ugu baaqay beelahaasi inay joojiyaan dagaalada halkaasi dib uga soo cusboonaaday isagoona sheegay in dhawaan ay gogol nabadeed dhigi doonaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. marka walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa inaan isku soo noqono anagoo nabad oo inta ka fiican oo xabadu naga joogsatay gogashii la fidiyay guddigana waxaan ka codsanaynaa dadka isxilqaamay dhabaanaha runtii aad iyo aad isu xilqaamay oo labada dhinac iyo dhinaca walaalada digil mirifle saddexdaas qaybood baan idhaahday dadka ayagana waxaan ka codsanaynaa guddigaas inuu gogashi taariikhdeedii meeshay noqonayso waqtiga dawladda ballan qaaday wixii tasiilaada amni haday yihiin haday dhaqaale yihiin dawladda Soomaaliyeed ballan qaaday inay ayaguna noo dedejiyaan isku soo noqono odayaasha maqan oon laga maarmi karinna meel kastoo ay joogaan in la helo. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.